الرحمن الرحيم saaka waxaanu isugu nimi halkan waxa jooga oo halkan maanta la jooga wasiirka madaxtooyada mudane maxamuud xaashi cabdi wasiirka duulista hawada farxaan aadan haybe ambassadorka inoo fadhiya dalka Kenya magaalada Nairobi Cabdullaahi Dakar oo saddexduba u socdaan safar Ethiopia magaalada Addis Ababa waxa ka sii horeeya waftigan maanta baxaya wafti culus oo ay kamid yihiin gudoomiyaha xisbiga kulmiye ahna musharaxa madaxweynaha mudane Muuse Biixi Cabdi wasiirka daaqiliga Faraton Yaasiin Maxamuud Xiir iyo wasiirka khaarijiga Saad Xaaji Cali Shire waftigaas waxay shir official ay leeyihiin madaxda dalka Ethiopia iyagoo ka wada hadlaya xiriirka qotada dheer ee maxaan ku raahdaa Ethiopia iyo maxaan ku raahdaa ka dhaxeeya Somaliland oo prime minister kuna oo maxaan ku raahdaa in badan ka hadlay berigii dhaweeyay madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland safarkii aan ku tagnayna oo prime minister ku cadeeyay inuu yahay mid qoto dheer saaxiibtinimada labada dal ka dhaxaysa anigu waxaan jecelahay inaan waftiga ku soo dhaweeyo waxaan idin sheegayaa haddii la yiraahdo sabtida subaxnimada 10ka subaxnimo inaan press conference qaban doono wasaaradda warfaafinta iyo wacyigelinta oo aanu kaga hadlayno maxaan ku raahdaa arrinta nabadgelyada maxaan ku raahdaa jamhuuriyadda Somaliland gaar ahaan xagga badda iyo maxaan ku raahdaa base-ka Berbera ee maanta xaaladiisu ay taagan tahay oo runtii waxyaabo fara badan oo aan sax ahayn ummadda aad moodo qaar muwaadiniin jamhuuriyadda Somaliland kamidi ay dadka gelinayaan waxyaabo fara badan oo aan waxba ka jirin oo aan wax la waxsal iyo raatoona aan run ahaantii aan maxaan ku raahdaa aan lahayn arrinta waanu cadeyn doonaa waanu balbalaarin doonaa shalay wasiiraha ka hadlay sabtida haddii la yiraahdo 10ka subaxnimadna shir jiraayad ayaanu kaga hadli doonaa waxa inay dan arrin muhiim ah u tahay oo qaranka jamhuuriyadda Somaliland dan oo ah maxaan ku raahdaa meel kasta ay degan yihiin waxaan imika ku soo dhaweynayaa wasiirka duulista hawada Farxaan Aadan Haybe